subaxnimada saaka ay taariikhdu tahay 23 September 2014 waxaan u fadhinaa kala fadhigii labaad inuu noo furmo golaha deegaanka degmada Xarfo ayadoo la oran karo intaan joognay wax badan waa noo qabsoomeen wax badan waa ku yaaminaa inay noo qabsoomaan ajendaha kala fadhiga haddii aan xuso mudanayaal ajendaha kala fadhiga labaad ee golaha deegaanka degmada Xarfo wuxuu ka kooban yahay qodobadan kala ah qodobka waa furitaanka shirka iyo qaybinta ajendaha sida hadda aad waraaqaha horteenayaan oo maalinta koowaad noo qabsoomay haddii la yiraahdo maalinta labaad haddii la yiraahdo dib u eegidda miisaaniyadda iyo ansixinta astaanta dowladda hoose oo ayada laftirkeeda aan hal abuur ku soo bandhigaynay dowladda hoose ee golaha deegaanka howlaha wakiilka uga inay astaan yeelato sidoo kale dib u eegidda xeer hoosaadka golaha iyo ansixinta guddi hoosaadka golaha deegaanka sidoo kale waxaan ku soo gunaadin doonaa kala fadhigeena munaasabadda xiritaanka golaha deegaanka hadduu alla idmo intaas waxaan rajeynayaa inaan isdhaafsan doono xogo iyo sidoo kale waxyaabo badan oo macquul ah sidoo kale hidiile iyo himilo gelinaya dadka aan ka nahay wakiilka shirka kala fadhiga waa noo furan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. waxaa maanta sharaf noo ah inaan kala fadhigii labaad ee golaha deegaanka degmada Xarfo aynu furayno runtii waxaan ammaan iyo bogaadin u soo jeedinayaa guud ahaan golaha deegaanka degmada Xarfo muddadii ay jireen iyo horumarka ay sameeyeen waxaan mid gaar ah ammaan iyo bogaadin gaar ah u soo jeedinayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye xogeenka oo runtii tusaale u noqday isbeddelkii uu ku hamiyay madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xukunka in dhalinyarada laga qayb geliyo dhalinyaro waxa la oran karaa ku guuleysatay kaalintii loo igmaday iyo mas'uuliyaddii loo igmaday ugu horreyn waxay ku guuleysteen inay labadoodu wada shaqeeyaan oo ay isku kalsoon yihiin isqabqabsiga iyo khilaafka iyo Soomaalida looma dhama iyo anigu ma joogin inay ka gudmeen sida ay saaxiibtinimada ay isugu xiran yihiin ammaan iyo bogaadin baan u soo jeedinayaa waana ifafaalo muuqda oo aan rajeynayno degmada Xarfo in ay wanaag badan ay u horseedi doonaan degmadanu waxa tihiin hadaan la hadlo golaha deegaanka dowladdii degmadan ayaa tihiin idinka dowladda ah dowladda hoose tihiin golihii sharci dejinta tihiin kan fadhigii hore waxaynu ku guuleysanay miisaaniyaddiina inaad ansixisaan waa miisaaniyaddii dowladda oo kale inaad saas u ansixisaan sidoo kale inaad xeer hoosaadkii ah dastuurkii dowladda Xarfo aad ku dhaqi lahaydeen inaad ansixiseen inta baradii la siiyay aad ka faa'iideysateen inaad u heelantiin wax badan inaad degmada ka qabataan wax badan oo guulana aad gaadheen qofku waxa la rabaa inuu ogaado una aqoonsan yahay shaqada loo igmaday adeegayaal waxa uu tihiin bulshada degmada Xarfo waxay u baahan tahay waxa la rabaa inaad idinku qabataan ma aha inaad ugu qabanaysaan dhaqaale iyo xoog kaliya waxa ugu badan oo wax lagu qabtaa waa talada waa aqoonta waa khibradda waa garashada waa way aragnimada intaas iyadana waxa la idinkaga baahan yahay inaad sida ay tahay u fulisaan degmadan
ودقمو رنتي دقموين كي وجودن بيجي بنتلان لا أساس كمدها وقت جي دولة عدم موسى هرمر بلارب بيسميسي وأقوى معنا يدنا دوينها دقمة حرفه هو يسكت شدان وسياسة هذا دولة بنتلان هي قاضتي بنتلان هي يسكت شطه هراي بيدقمة عن وقاضتي وحكوا قولي ستي دقمة عن أنا لساتو حرتي معمول كأي دقمة يدو لا وحكوا قولي ستي أنا لسات سلقي بوليسكا أي يدو لا دولك الصومالية أردن بوليسكي صوماليا هنتدي أولا هابا إن بدن وكمل البربرية meelo badan baa saldhigyadii iyo qaybihii booliska ku yaalay ay burbursan yihiin degmadana waxay ku guuleysatay saldhig boolis oo ay leedahay inay iyadu dhisato hawshaas oo gobolka mudug uu ku amaanan yahay bulshadiisa iyo booliskiisu iyagoo isku kalsoon magaaladaana kamid ah magaalooyinka dadku bulshadu ay dhisatay saldhigyada waxaa kamid ah magaalada cagaaran baa kamid ah waxaa kamid ah bursaalax baa kamid ah waxaa kamid ah daar salaam waxaa kamid ah galdogob waxaa kamid ah jiriiban intaas oo dhan waxa weeye dadka bulshada deegaanadaas ku dhaqan gobolka mudug sida ay amniga ugu ooman yihiin waxay ku tusaysaa saldhigyo boolis ayay wada dhisteen taana degmada xarfo way ku amaanan tahay waxaan ammaaniyo bogaadin uga soo jeedinaynaa munaasabadan agaasimaha hay'adda horumarinta waxbarashada iyo nabadda maama xawo aadan camay oo degmadan horumarkeeda ka qayb qaadatay xarunta waxbarashada gaar ahaan gabdhaha oo ay degmadan ka dhisay oo runtii horumarka degmadan qayb weyn ka qaadatay taasoo ah runtii iyaduna wax degmadii kabay horumarinta gaar ahaan ardayda iyo haweenka magaalada oo bulshadeeda dugsi sare ay dhisatay dugsiga sare intaan la dhisan xaruntaas ayaa dugsiga sare lagu dhisin jiray horumarkaas wanaagsan iyo dadaalkaas dadweynaha degmada waa ugu mahadcelinaynaa hadda waxaan idinkula dardaarmaynaa degmadan waxay horumar ku gaari kartaa golaheeda deegaanka maamulkeeda iyo shacabkeeda oo sidii isugu tiirsanaan jiray isugu tiirsan inuu isku tashado oo inta ka dhiman degmada horumarkeeda in wax laga qabto degmadan waxaa iska bedelay wax badan deganaashay degmadan heshay khilaaf baa jiri jiray isqabqabsi baa jiri jiray qabyaalad baa jiri jiray balaayaa jiri jiray wasiirra imaan jiray maamulka gobolka imaan jiray talisyada ciidamada imaan jiray dibtii waa laga raysay degmadii hadda isbedelka golihiina deegaanka uu keenay waxa kamid ah deganaan iyo xasilooni wax is haysta lama arko wax isku booqayo lama arko odayaal baa magaalada laga xiray dhalinyaro laga xiray baabuur baa lagu dhici jiray dhibaatooyin fara badan baa ka dhici jiray intii oo dhan maanta inaad samayseen inaad ku guuleysataan inaad xasilooni iyo nabad ku soo dabaashaan aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rajaynayaa kalfadhigiinii hore ayaa shaqo badan qabateen oo wax walba loo baahnaa aad diyaariseen inta hadda dhiman inuu fudud yahay dib u eegidda hadday ahaan lahayd iyo ansixintii miisaaniyaddii hore iyo tiya sidii loo bedeli lahaa iyo sidoo kale xeer hoosaadyadii iyo wixii aad ansixiseen oo dhan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idinkula dardaarmaynaa degmadan idinka idin sugaysaa taariikhda intii aad soo jidheen baal wanaagsan baad iskaga qodheen waxaad iskaga qodheen inaad dhalinyaro diyaar u tihiin iyo rag waaweynba intiina ku jidhaa inaad degmadiina wax ka qabataan waxa aad qabanaysaan oo wanaaga cid kale aadi mayo meel kalena aadi mayo waa guryihiinnii iyo dadkiinnii aad ka soo dhex baxdeen oo idin soo doortay baad u shaqaynaysaan intaa marka waad ku mahadsantihiin wanaagga aad samayseen waxaan idin rajaynaynaa intaa hawsha halka ay marayso inaad kasii horumarisaan aad sii gaarsiisaan meel kale munaasabadeeda aynu ka hadli doonaa waxaa marti inoo ah oo inala joogta hay-addii wadooyinka puntland oo wadadii isku xiran jidhay xarfo iyo boortinle dayactir ka bilaabaysa inaad noqotaan kuwa ugu horeeya oo wadadaa gacan ka geysta xoog inaa uga geysataan maskax inaa uga geysataan dhaqaale inaa uga geysataan dadka xoolaha ceelka cabaya magaalada reer walba ari baa u xiraysan sooma maalin walba inay hilibka ku qaybtaan shaqaaluhu aysan oran meesha xarfaha markii aan joognay gaajaan ugu baktinay aysan oran inay hilib ka dhargaana waa idinkula dardaarmaynaa haddii alla idmo munaasabadeena waa furitaan waa wada joogaynaa haddii alla idmo waana idinla sii wadi doonaa shaqada haddii alla idmo inta dhiman shirku intaasuu golihii deegaanka fadhigiisii labaad kalfadhigiisii labaad inuu ku furan yahay guul baan idin rajaynayaa ilaahay raxmad iyo roobna hayna siiyo ilaahay qulubteennana ha isku soo dumo ilaahay boggeena burcad ha isku mariyo ilaahay midnimo iyo wadajir hayna ku beero qofka qalbigiisa inuu ilaahay wanaag ku beero ayaa liibaanta ku jidhaa ilaahay qalbigeena wanaag ha ku beero khilaaf iyo nacayb iyo kala tagsanaanna ilaahay hayna ka tirtiro wadajir iyo midnimo ilaahay hayna siiyo guul baan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum salaanka bacdi mudana guddoomiye muddadii dhowrka maalmood ahayd oo 6 bari aan joognay degmada xarfo waxaanu ka qabanay ka wasaarad ahaan aniga shaqadii aan loo soo dhigay heer gobol ama aan waajibaadka u lahayn oo ahayd sixitaanka iyo khilaaf saaridda degmada ee dowladaha hoose ayada aad baanu u dhex galnay waxaanu saxnay xisaabaadkii waxaanu saxnay dokumentigii
waxaanu toosinay dhammaan kala sarreyntii iyo jaranjaradii shaqada arrinkaasina waxa weeye meel guul leh buu istaagay waxaan ilaa hadda shaqadii loo furin xogihii dowladda hoose oo arrimaha aan kula sugeynay ka mid ahaa waxaanu maanta halkan aan ka qayb qaadanaysaa oo aan kuugu yeernay sida uu guddoomiyuhu sheegay degmadu kalfadhigii koowaad kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka degmada Xarfo oo bacdi mudanaya laba arrimood oo yaryar baan midba wax yar ka oranaynaa waxaan ka soconaa hay'adda la yiraahdo neesha waxaa la yiraahdaa Puntland Highway Authority hay'adda wadooyinka Puntland hay'addaasi waa hay'ad ka mid ah hay'adaha dowladdeena Puntland ma aha hay'adda ajnabiga waa hay'adaha dowladda laan ka mid ah barnaamijkaasna u qaabilsan dowladda safarka halkan aanu ku nimid oo Xarfo aanu nimid wuxuu ku saabsan yahay baahida nooga muuqatay wadooyinkeen waxaynu la soconaa dowladdeena hadda cusub ee madaxweyne Cabdiweli Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaasoo hogaamiyaha ka yahay isbeddelkii uu ku dhawaaqay wuxuu ahaa in dadka reer Puntland isku tashi sameeyaan oo cidina aysan wax ka sugin waxa ayagu ay qabsan karaan wada jirkooda iyo ma adduunyada lagu wada masuuba